sanad iyo bar ilaa 3 sano jir carruur ah gurigaada ma joogtaa mise ma maqashay xanuunka loo yaqaano autism ama autism spectrum disorder. haddaba bal ila eg in carruurtaas xanuunkan autismka calaamadihiisa ay qabaan iyo in kale. xanuunka autismka loo yaqaano waa xanuun ballaaran oo noocyo kala duwan leh, hase ahaatee 3 arrimood ayay ka midaysan yihiin. xanuunkaasi wuxuu saameyn ku yeeshaa language-ka canuga ama xiriirka ama hadalka canuga, la tacaamulka dadka ama waxa social interaction loo yaqaano, behaviorda ama canuga dabeecaddiisa. markaan u imaano xagga language-ka, canugu waxaa dhici karta markuu kolka hore soo korayay sanadii wuxuu gaaray inay hadal bilaabay, kadib ayuu hadalkii istaagaya ama hoos u dhacaya, ama waxaa dhici karta weligiiba ina cunugii una hadal bilaabin. waxaa kaloo dhici karta hadalka uu cunugu markuu hadal baran lahaa hadal aan la fahmaynin iyo luuqada aan la fahmaynin oo ku celceliso inuu ku hadlo. waxaa kaloo asagana saameyn uu ku yeelanaya hadalka keliya ma ahe wixii xiriirka loo isticmaalahayay oo hadalka ka madax bannaana. ay ka mid tahay qofku markuu xanaaqsan yahay oo hadlahayo in joojigiisa laga dareemo farxaddii iyo caradii, in isticmaalkii gacmaha ama gestureska waxa loo yaqaano oo madaxa iyo gacmaha iyo inuu qofku markuu hadlahayo iyo wixii la midkaa inuusan lahayn, oo ilmahaasi xataa markuu wax uun ku hadlahayo shucuurtiisa aan la dareemaynin. markay imaato wax social interactionka la dhaho ama la tacaamulka dadka, canugan ma ku aragtay calaamadaha sida in ilmihii kale uusan la ciyaaraynin. canuga marka xanuunkan qaba keligii ayaa ciyaarahaya. haddaad usoo gado waxa lagu ciyaaraya toyska loo yaqaana ama wixii la midka ah, keligii ayaa meel istaagaya iskaga ciyaarahaya. waxaa dhici karta in dadka ka waaweyn ama bay-ada u arkaya ama ilmaha kale waxay samaynayaan in uunan koobigaraynayn, uun isku daynin waxa inuu sameeyo. taasaana badanaa ilmuhu ay sameeyaan. waxaa dhici karta in cunugii markii loo yeero oo waalidkii uu yeerahayo ama la hadlahayo inuunan soo fiirinaynin, oo asagu meel uu iskaga mashquulsan yahay maskaxdiisa iyo caalam kale uu iskaga dhex jiro maskaxdiisa aad dareemayso. xagga behaviorada markaan imaano ama dabeecadda canuga xanuunkan qaba, waxay jecel yihiin waxa repetitionka la yidhaahdo. repetitionka ama ku celceliska noloshooda in hal nooc ay ku socoto. hadday soo kacaan ay ilkaha cadayanayaan, hal nooc bay maalin walba u cadayaan. oo hadday cuntada cunahayaan sidoo kale hal siyaalay, hal meel bay ka bilaabay ilaa dhammaadka waa inay saa raacaan. ma ogolo bataatanba wax cusuban ama wax laga bedelo noloshooda iyo routiinkaysay wax u wadeen. xataa guriga haddii laga bedelo oo yani guriga ay noqoto inay meesha ka guuro, iskuolkii in loo bedelo, qofkii carruurtan hayay in laga bedelo, waxaasoo dhan routiinka ah carruurtan ma ogolo oo way dhibaysaa. waxaa kaloo leeyihiin in madaxooda ay ruxaan, gacmaha ay ama la dhacaan bawdada oo kale ama lugaha ay dhulka la dhacaan iyo wixii la midka, madaxana marmar derbiga inay ku garaacaan ayaa dhici karta. intaasi waa calaamadaha lagu garto xanuunkan. autismka ilmaha qaba way kala duwan yihiin. nooc waxaa jira loo yaqaano Asperger syndrome ama high functioning autism. nooca wuxuu yahay calaamadaha xanuunkan canugan wuu leeyahay, hase ahaatee wax raad weyn oo uu ku yeelanaya malahan. carruurta noocaasa oo qayb ka ah boqolkiiba 10% dadkan autismka qaba, saameyn weynna kuma yeesho, waxayna noqdaan ilmo aad u caqli badan, u xirfad badan, oo laga yaababa inay caalamka ama bulshada wax weyn kusoo kordhin karaan. inta ka soo hartay oo autismka inta u badan oo meel dhexaadka ah waa dad autismka xanuunkan qabo. qayb ka mida carruurta autismka qabtana waxaa dhici karta inay doqon bay yihiin oo maskaxdoodii iyo caqligoodii uu aad u hooseeyo. waxyaalaha kale autismka la socon kara waxaa ka mid ah in maqalka uu saameeyo ama canugu uu dhagool noqdo, in canugaasi cudurrada kale dhimirka ay ku dhacaan sida xanuunka waalidoo kale, depressionka, anxietyda loo yaqaano iyo wixii la midka ah. xanuunka autismka loo yaqaano
waqtiga la ogaan karo waa sanad iyo bar ilaa 2 sano canuga inta uu jiro, ugu dambeyn ilaa 3 sano ayaa si fiican loogu ogaan karaa. waqtiga ayada ah haddaad ku aragto calaamadaha aan sheegnay, waa in canuga aad dhakhtarka ciyaalka u geyso, checking iyo screening lagu sameeyo, la fiiriyo in canuga xanuunka autismka uu qabi karo. arrintaasi waa arrinta ugu muhiimsan ee canuga aad u samayn karto. markii la ogaado xanuunkaasi inuu canuga qabo, waxaa loo samaynaya wax la dhaho intervention ama la tacaalidda loola tacaalayo. xanuunkan sidiisaba waa xanuun say u badan tahay qofka uu la noolaanayo noloshiisa. hase ahaatee dhibka uu ku keenayo ayaa loo samaynayaa daaweyn iyo la tacaalid, taasoo loo fududaynaya. mathalan canugii haddii hadalkii uu dhibahayo, waxaa loo samaynayaa speech therapy la dhaho iyo muddo lagu wada hayaa, taasoo u fududaynaysa canugu inuu hadlo. waxaa kaloo dhici karta in behaviorda laga bedelo, oo maadaama ilmahaasi ay waxyaalo badan uu dhibahayo repetitionka si fudud aynan mathalan diaperkii ooga madax bannaanaanaynin, aynan wax u qori karin, waxbarashadooda ay dhib noqonayso. taasoo dhanna marka waxaa loo samaynaya intervention, special schoola la geeyaa, dhakhaatiir speciala loo geeyaa. taas waxay u fududaynaysaa in cunugii wixii dhibahaya ee uu ka hadlaysnaa in laga soxo ama ilaa xad loo fududeeyo oo caring loo sameeyo.